بسم الله maanta waxaa qabsoomay shirkii golaha amniga qaranka kulankiisii lixaad oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxweynayaasha isteediyada shirka waxaa looga doodayay guud ahaan amniga guud ee wadanka halkaasi waxaa warbixino laga dhageystay dhammaan madaxda isteediyada la xiriirta amniga qaranka iyo sidoo kale taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska iyo dhammaan hay'adaha kale oo ay qusayso ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga sidoo kale shirka hadda waxaa looga dooday sidii ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amniga oo hadda gacanta ay ku hayaan badi ciidamada AMISOM marka shirka lama soo gabagabeen ilaa berrito wuu socon doonaa